السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله الصوماليات وإذن سلامي سيدتين الحمد لله أنا قلنا وفي عنها إلى بما حتى إسكالة إذن نسكو كين سوعليي إلى بما حتى السقناطي إلى وأدام حتى إسكالة الحمد لله الشكر لله وهدنا نسون نبت عليه وهدنا مركلنا اسم قلنا الحمد لله رب العالمين مروال بإلهي وحمدية حمدك إلهي بضية xamdiga ilaahay markaa badaysan ilaahay wuu kuu sii saaidina nimcada oo alla ku siiyo wuu kuu sii badinaya marka xamdigiisa weligaa allaha iloobin inaad ilaahay ku xamdisid wax walbaba qeyr ishar wax walba ateystina tirada alxamdulilah ilaa adaama hataa iskale taas hadan taas uga baxo waxaan inuu kaan dambeysay baartawan aan ka sheekeeyey masiir mataqaanaa maasha allah tabaarakallah baartugis ee had idin wadaa marka qaybtii ugu dambeysay oo ahayd maamadii oo gabadhii saaloonka u hagaajinaysay oo saaloonka ayada u hagaajinaysa waxay noogu dambeysay saaloonka ayada u hagaajinaysa ninkeedii oo saaloonkeedii ay iyada lahayd ay ganaagtii gabadhii uu ninkan la socday ugu imaan rabay balanta ay lahaayeen maalintaas inay out aadaan oo ugu soo galay saaloonka saalonku imaanayna asawarka ma haya waa saalonka naagtiisi waaye oo guriga u joogtay oo waxay isqabeen 40 years marriage waaye yaa 40 years ma yar yahay 40 years ma yar wallahi billah 40 years ee qiyaana ila nin qiyaana ma daaya wala nin qiyaana ma daynaya hadduu 100 jir xataa still uu qiyaanaya guurkan waxaa waaye 40 years marriage aheyd marka laakiin hashas gabar isku hayeen wax kale may u dhalin gaalada iyaga ilmo badan ma barbaanba hal cunug haddii helaan daasid cunugaasaa ku filin fahanteen anagoo kale ma aha sidii ariga camal daadanayn rub manaha ayaga ma aha saas ma aha only one wanka waxay ku dhahaan kaasaaba shii dhiciba kaas haddii koriyaan daasid marka alxamdulilah waxaa dhacday marka gabadhii oo timihii hagaajinaysa iyo odaygiisa oo kale ii hagaaji qurux iga dhig oo soo socda laakiin ayada ismay dheheynin waxay gabadhaa saa ugu farxaysa waa ninkii 40 years ku qabay ismay dheheynin fahanteen albaabkuu saa fag u soo siiyey iyo waxaa kasoo horbaxday wejigii islaantiisi wejigii gabarta intay kasoo horbixin islaantu 40 years la seexanaya kasoo horbaxday waa yaraana intuu dhahay allah nimanka sometimes markii la qabto allah tug la qabto markay noqdaan wuxuu noqday jiir alow intaan ka baxaayo ka dhacdo intaan ka baxaa yaa iyo tii yareedoo kasoo farbaxsantay ku dhah ninka u orday madaxalooda markaas waaba loo dhameeyey already hab alisi iyo ninkiioo islaantiisi arkay muxuuba ayada maba arkoye indhihiisaba ma isagay fiirinaysa islaantiisi tug la qabto talamana maqli jirteen islaantiisi baa wacad markaas hab abaaheli maxay ogtadee duq waa la xambaariyey hala xambaaramaba xumee duqaad xambaaraysid ma duq noocee waay wuxuu yahay dhagax oo meel soo istaajiye maaragta sometimes qofku markuu naxo waxaa dhici karta inuu meesha ka dhaqaaqinba naagtiisina she's not expected gacantii iyo afkiisa isku saartay tag way ka qaadi weyse iyo tii yareedoo dhehaysa baby naagtana ku barayaa customer ayaan u ahay fareenkayga waaye ayadaa mar walba saa madaxa igu hagaajiso way soo jiidiyaa
intay saa usoo jiiday naagtiis korka saana loo korkeenaa ku dhahay saa markii loo korkeenay bay gacantii ee afka ku haysay intay saa u kala qaadee bahal dharbaaxday waa iska kala jiida intay tiri yaa baaduqu waxaa lagu siiyaan ku dhahay dhabax indhaha la kala fujiyaan ku dhahay kaas waxaa la yidhi wasaq laga is it you alle maanta wax cunugtaan waxaa la saas ugu boodboodaysaa la yidhi yaa ma ninka lacagta yacni indhaha ugu qaaday is it you alle wax la dheed garaynaysa inay gabadhaada tahay oo kale yaa okay ani gabar yaraa maxaa kasoo hartay you guys know each other mis taqaaniin mis garanaysiin maxaa u dhirbaxday maxaa dhahay markaasuna wuxuu ku dhahay wifekeyguba is your wife ma wifeka oolkaa sheegaysiya oo naagtan waxay tiri old maba ahebe you told me very old women oo bahalkii oo dhimatay oo waxba meel iska fadhida ama qababa dheysay naagtan gabadhan waaba she's still young waa she's beautiful waa gabadha yarada istaagtay waxay tiri maxaa dhahay islaanta oolkoo dhimatay sheegays ma baba islaantaane saa dhimatay ma waa naagtan tiri maxaa waxa iga ka sheekeynaysa everyday ay tiri yacni waxaa la yidhi anaa iga ka sheekeynaysa waxaaba kaaga darba shukaansaga maba xumee markuu ninkaada naagta uu shukaansana uu kaaga sheekay ada waxaa tahay waxay tiri ma cunugta yaroo adiga aad dhali kartay tiri baad ugu sheekeynaysay tiri ana how I look like yaa 40 years aan ku garab saaxanayaa la cuntadaada iyo dharkaada iyo waxaadan hagaajinayaa la yidhi yaa baad waxaad iga soo qaatimaa la qof dhintay oo kale gabadha yarad wayba yaabtay waxay tiri islaantan waaba still young wife still beautiful wife maxaa ii dhehaysay tiri islaan dhimato soo kici karin waay adigu islaantii martakeeda ay joogtay gabadha yarad way carartay gabadha yarad carartay uu ka daba baxa isaga uu kasii daba baxayba ay saluunkeeda shaqadeeda iska sii wadatay shaqadii way wada weysay madaxii yaa qarxay islaantii gurigay tagtay allahu akbar guriga markaan tagna maxaan taqaanay maxaa sameynaa ma taqaanay marka naaga hadee allahu akbar waxaan maqla jiray bacda madoobeeda banaanka ku taala baca bay soo qaadataan ku dhahay boorso malaad ugu watay boorso may soo qaadin bacda qashan kale soo qaadatay dharkiisa ku gurtaan ku dhahay xoog kale ma balihin ma anaga xoog leh hadee qashanka waxay gurtay dharkiisa ku gurtay banaanka iriida ala ugu tubay ninkan ile maalin wuxuu sheegay jir waa idin sii sheegay inuu excuse every single day oo excuse socdo oon dhamaanin caasha inta ka soo dhacday maanta meeting baan leeyahay maanta nin hebel ba halkaa geynaya maanta show baan leena naa balaayo duumo socoto inuu idin sheegay oo waa idin soo sheega ama leena agtan uu ku waday 8 bilood uu ku waday ninkan waa isbedelay laakiin naagtan ismay dhihin ninkan waa aragtay inuu isbedelay laakiin ismay dhihin gabar yar meel u joogto ama uu ku qayaana ismay dhihin because ninkan waxa la noolad 40 years la noolad meel ka aaday ninkan afaante yes maalintaas marka soo dhaqsiye hadda ugu baahan hadda malagaaga baahan yahay soo dhaqsata yaa ku baahan hadda sheekada way fashiltay yaa ku baahan maalintaas wuxuu imaaday on time xilliga uu imaan jiray bari uu fiicnaa moogid xilliga uu shaqada toos intuu ka soo baxay uu toos guriis u soo aadi jiray xilliga imaaday laakiin cid u baahan male xilliga markuu imaaday wuxuu imaaday dharkiisii oo banaanka sidii loo dhigaan ku leeyahay sidii ari ma arkay ari meel fadhiyo kala loogu daaday dharkiisa hataa bacda ma loogu basasa loogu tuuray ku dhashay teeshiisi balaas kastuumadiisi balaas kabihiisi banaanka irida lagu firdhiyay okay
gabadhan marka in le meelayba u degan tahayba guri gooni uu ijaaray gurigaasoo ilaa intuu maqan yahay maalmaha intuu soo halkaas time naagtan la soo qaata cunugtan yar ka bacdina adiga time wada la soo qaataa maalin baduumadan uu sheegay ayadu time kala soo qaata laakiin guriga already uu ijaarayo uu ka bixiyaa tii marka waxaan marka idin sheegayaa hadda gabdho meesha horta waxaan ka qaatay aniga horta so many aqli oo mar hore igu jirin baan ka qaatay idinka inaad ka qaadi doontiin u maleeya sembri gabdhaha guursadaan nin naag qabo guursadaan ani always waxaan u maleyn jiray gabadha weyn inay masiirto oo naagtan kalaba ee masiirba dareemeynin laakiin hadda waxaan ogaaday in mataqaanaa naagtan gadaal ka imaanaysid ay ka masiir badan tahay gabadhii hore loo qabay oo jaaniska ay rabtana uu yahay adiga inay booska kaa bixiso sida ay iyada booska u hesho laakiin anagu u sheena waxay tahay in mataqaanaa ninkaas haduuba naag kale hadda keeno in anaga meesha ka baxno oo yacni aan okay dhahan ninkaas bye bye bas that's it inaan dhahno ma fahanteen laakiin ayaga marka adiga saas aad tiraadid abaa heelay ayada wax ay rabtaba waaba taas waaba sidaas waa sidee rabta ayada waxaana ogaan doontaa sheekadan ku soo wada ku ogaan doontaa marka ana hadda forum aniga ahaan aqligaas waa iga maqanaayo umaan u maleyneynin in ay rabaan ninkaas yacni sax way ku farxee way rabtaa booskaas inay kaa bixiso waan ogaa taas laakiin uma maleyn jir in yacni ay masiiraan oo ayaga ay masiir haysato oo ayada ay masiirayso ana uma maleyn jirin already waxaan u maleyn jirin gabadhan le hore gurigood sii joogtay in ay masiirayso bas aan u maleyn jirin fahanteen inkastoo masiirka wax abuuro qofku bini aadamku ku abuuro ilaahay keena oo waa wax ilaahay keena waa masiirka sidiisaba marka qof walba looma masiiro qofka aad aragtid gabar masiiraysa ninkaas waa inay jeclaad waa gabadha waxaa jirta ama masiirin oo shaqo ku leh dad min saxaa ninkaas ma jecleen waxay ka taagneed ilaahu kaas hal mar la iga wada ma fahamteen sideedaba haddaad haystid gabar kugu masiirto way ku jeceshahay marka haddana kugu masiirno hadda ku dhawriya ordo meesha rabtaba gal meesha iska fadhiyo dad min saxaa I don't care about you way just waxaa rabta samee waa laakiin ana shaqo kugu maliba kuma jeceli way ma fahamteen marka always masiir hadda aragtiin waxa waa xaaji waa la jeceliyaa marka waxaa dhacday gabadhii yareedoo ku sariirtii fadhido oo adigana boorsaashiisa iyo wixii bac iyo wixii dhar daadsan waa taqtaq soo qaata alxamdulilah baa iga raali ahaada alxamdulilah baa waxaa imaaday soo kale eedii ka soo kale oh honey you coming early marka ma ahayn xilligaas inuu imaado ma ahayn because maanta suugu waxa wuxuu kuma imaan kari maanta naagta way kacsan tahay umuu tigin marka waxay tiri maxaa hadda arliba soo noqotay tiri maxaa jira hab alisiyaade waxaa la yiri baby forever aan kula joogaha la yiraahdo oo cada oo naagta ma iga soo daqtay oo full time day and night ana ma had ila joogay dee aan adan kula joogaha la yiri islaanta way iga dhamaataa la yiri bas sheekada kala guureyna ya sheekada ani iyadoo noo kala dhamaatay waa haddana kala guurna ani iyada waa in afro oo adinku aroosa waay waxaa taqaana waa la isku boodayay habla la siiyey waa ii gashay tiri saan rabi lee waay awal 3 hour leen ku arki jiray tiri gurigan ilaa i dishay hadda adiga forever meesha aan lama ila joogay guriga ma iga bixaysid miya mayaa la yiri shaqo leen ku aad leen ku imaan hadlaa doqdi 40 years ka aqbi isqabnimo aragtay baabay meesha ku macsalaamantaa la yiri okay tii sidaas ee ugu dhamaatay
laakiin dhibaatooyin badan ay ka qaaday. Way fikirtay dooqday inay sariirta kaleed ku oyso, inay shikaan not brave adii oohin badan waxay oyso waxay sariirta kaleed ku oyso. naag saaxiibteeda eeday u sheegtay. ninkii waxay tiri tagiyey waa kanaa. gabadheedina way u sheegtay. waxay tiri aabaha gabar adoo kale haystaa intaas usan i khiyaanayay. hadda waa kaas gabadhina eeda mininahay meelaha kale ku haysatay. habeenkan ma imaad ayaa ninkeeda hore usii raacday. doqda kaligeed guriga kaligeed aa fikiraysa. waxaa dhacday ninkii inuu u tagay gabadhii aabaheed uu ka doontay. wuxuu dhahay gabadhaan rabaa inaan arooso. baasboorkaada keenaa la yiri. baasboorka marka waxaa kugu qoraana inuu marriage tahay, inaad naag qabtid, inaad cunug dhashay. waxaa la yiri married baa tahay. naagtan wuxuu dhahay waan divorce garaynayo ani. warqadda divorceka markaad ii keentid waxaa la gabadheeda ku siinaa waxaa la yiri. wuu baxay. naagtii wuxuu dhahay warqadda ii qoran ii saxiix. warqadda way u saxiixday dhag waa u tuurtay oo u saxiixday. markay u saxiixday warqadda saxiix u keenay. waa kana waa la soo naagta waan soo furay kala dhamaan gabadhaada igu dir. gabadheedu wuxuu dhahay waxaan rabaa aroos weyn inaa u dhigtid. mame aroos weyn ma u dhahay haddadan waduu dhahay. sidaan u jeedaa ku waduu dhahay. sidaan u jeedaa ku wada. ana $1 ma bixinaya. marka aboohelo waa ninkan $1 lacagtiisa badanaa maysa. naagta marka kula fur lacagta haaf idaa qaadanaysa ma fahmino. lacag yar u soo haraysa arooskana uma diiqa. adiga wuxuu ku dhaha marka kuma taqaanaa gabar saan ku wada. gabadh in weydiid waxay tiraan aroos weynaan rabaa in aroos weyn la dhigaan rabaa. adiga kugu taalayaa la yiri. ma saanaad ku haysan ama waad ka tegi. adig labadiina iga dhexaysaa bas. adi ninka wuu xanaaqay wuu baxay. haddana waa utad gabadh yaa raadanaysa. waxay tiri la-aantaa ma noolaan kare soo noqo. aabbahay laasim inuu lacagta bixiyo. ada doqo maxaa idinku daalinayaa. lacagaa laga qaaday. aroosaa loo dhigay. aroosii gabadhiisii. gabadhi waa aroostay ma fahanteen. gabadhi markuu aroostay meeluu dejistay. arooskii u dhacday. islaantii kuu soo hartay si kaligeed sariirta ugu oynaysay ee dhibaato u haysatay. saaluunkeeda marna ugu caysay marna u shaqaynaysay. saaluunkii bay waxay ku baratay nin asagana naagtiisa ka dhimatay oo gabar weyn qaba oo gabadhii ay gabar sii dhashay oo garaan baa ah oo laakiin nin oo saas u weyn ma aha. saas uma sii weyno. adi 40 something waa oo pilot oo diyaarad duuliya la helaan ku dhahay. iyaa maxaa la yiri hadda bunluwe maxaa la yiri badarkiis maa la helaa. soomaali ma dharan. soomaali mamahada way iga maqan tahay. bunki haddii la waayo badarkiisa la hayaa miya I don't know. waxaa waaye nin haddaad weysid koo kala soo baxaan fahanteen. yaa bahal pilot oo naag qabin oo naagtiis intay ka dhimatay hal gabar u dhashay. gabadhaas korsaday. gabadhii ee cunug dhashay oo ninna ma qabta laakiin cunuga iska dhashay. cunugii marka waxay u haysaa waxaa isla degan marka gabadhan uu asaga dhalay iyo walaashiis guri isla degan iyo cunugta ay dhashay. asagana waa la noolyahay laakiin duuliyii waa asaga diyaarada duuliyaa ma fahanteen. gabadhan yar uu marka waa asaga dhalay. gabadha ay dhashay aada u jecel yahay. asagaa wax walba usoo gado. tan waa mad iska wareegto waayo cunugta warka ma hayso. marka saaluunkii buu wuxuu dhahay gabadheeda madaxuu u hagaajiyay cunugtii yareed. saaluunku keenay marka asagoo marka maalin iyadoo yani stress ku furan yahay oo aad stress u furan yahay oo markii ninka divorceka uu ka qaatay oo kaligeed isla hadlaysa. ninkan diyaaradda markuu keenay gaariya u yaalay eelaboorka gaarigiisu soo qaatay. way lugeynaysa marka ma is ogo. masiirka mugtu waa wax aada u kolol. isma ogo marka way lugeynaysa. iyadoo lugeynaysa buu meel goynaysa gaarigu ku dhufan gaari. gaarigu ku dhufan gaari bareega u qabtay.
markaasuu wuxuu dhahay maxaa dhama fiirinaysa roodkii maba arkaysid maxaa kaa qaldan markaas waxay tiri adaa wax kaa qaldini bay tiri waxaad ii arki weysane adigu isla murmeen wuxuu dhahay kaala aan rayd ku siiyee rayduu soo siiyey marka gurigeeduu keenay marka way ooynaysay marka dhibaatada ku haysta ii sheeg way u diiday marka inay sheegto kabacdi last minute u sheegtay waxay tiri ninkayga aan 4 years soo joogni baa waxay tiri cunug yaroo gabadheeda la qeyr wuxuu dhahay iga raacay bay tiri oo markaas wuxuu iga soo dhigay like trash amal markaas wuxuu dhahay wax walbaba waa la arkaa wada intaad joogtid wuxuu dhahay kameero u dhahay waa xawaa laba bariid oo ooyni wad fiicanaysaa u dhahay still young beautiful tahay waxaa tahay u dhahay gabar qonaan islaam weli qurux badanaa tahay niida iska jirin u dhahay just hot shower ka qaado abuuhaas iska waraab abuuhelo markuu jeclaaday intuu gaarigooda wajigeeda ooynayso asaga waaba ka helay already waa dhaxgashay ma fahantiin waa dhaxgashaan ku dhahay nin aad u degan akhlaaqad lehna waa aad u degan waa ma fahantiin marka kaarkiisu si wuxuu dhahay in time sometimes daarabto inaa qof aad la hadashid kaarkeyga waa kana isoo wac marka ilaahay amarkiisa may wicin laakiin kaarka way haysatay maantaba gabadhii yareed asagoo wado buu keenade saalonka waatan hadday kalaba badato hadde ma adiga wuxuu saalonka iskale ha aniga waay ma xasitid miyaa gabadhii oo bargeed waa ku xasuustaa allah akbar adiga waxaan ku dhaw isku yareeraaday ma fahanti waa ku raadinayo dhan muddaan ku raadinayo dhahay habeenkaas maba saxano dhaa meesha ku keen wuxuu dhahay gurigaada ku geeyey meelaan kaa raadiyan garan waayo dhahay gurigaada xataa dhowr jeer imaado dhahay aan kugu sugu dhahay laakiin waa ku waayo dhahay marka wuxuu dhahay am happy dhahay haddana mar alla mar kale haddaan ku bartay ma fahanti waxaan rabaa inaan ku xiriir kula yeeshto waxaan rabaa inaan kaa dhaqo dhaawaca ku soo gaaray anigu waxaan ahay nin pilot ah halkaas ayaana deganahay gabadhaana waxaa dhashay gabadhaydaa dhashay garaanpaa ayaana u ahay walaasheed iyo isla noolnahay halkaas ayaana ku noolahay waa kaas nolosheeda ugu intii yaraad ma fahanti interestna adaa ku hayaa ma fahanti aniga waxaan kaama rabo waxaan rabaa inaan ciilkaad ku jirto aan saa kaaga siibo sidaa inaan kaaga siibaa la yarino oo garabkaas soo istaaga ayaan rabaa bal boos ma ii banayn kartaa boos ma ii banayn kartaa maxaa la dhahay odaygii iyo gabadhiisina way isla maqan yihiin soo mogid nin gabadhina wareersaneedna maxaa la helay ninkii ayada qabay business xun wuxuu ahaa lacag aan haysanuu ahaaye pilot oo intaasoo lacag awar sameeya baa la helaan ku dhaha aadminis marka maxay tahay niidalska ma jibi ma fahanteen xabadkoo hadduu baxa xabadkoo kale helee ooba kii inuu kasii ficnadaa dhici kartid marka meesha maxaan ka qaadanaynaa niyadda iska dirinin gabdhow ma fahanteen marka waxaa igu dheeraanaya mataqaana videoga inaan dheereeyo marba ana xataa markaan wax fiirsanayo ma jeceli video inuu bato ma jeceli waa boorina dareemaya mid kale time looma hayo aniga dhan waxaan nahay rush hour qof kasta wuu ordaya marka ma jeceli inaan mataqaana long video ka dhigan short waa then waxay noqonaysaa party 3 ay noqonaysaa adaban yaa xasaasid waayaan kule way kugu soconayaan kuleeyahay waxaan rabaa koobkaada smoothiga iyo koobka shaaha inaad soo qaadatidaan kuleeyahay sheekadana ha kugu socotaan ku dhan fahanteen hana isku daadinin shaahada kulliyahay because waa masiirade yaa masiirkii badnaa ee soo martay duqdii oo waxaan ku leeyahay la caayay oo la yiri habar meel aan ka soo kacino ma taqaana dhimateen qabaa hatta gabadha yarada way yaabto waxay tiri gabadha saa qurux badan ma caynaysi ayadaaba yaabtaan ku dhan fahanteen marka nimanka mar hadday kaa tagaan waxaa waaye waa lagaa sheekeynaa ma fahanteen maamadii sida u dambaysa nolosha ay gashay ee ninkii 40 years lasoo haayay oo hadhicin lasoo dhahayaan ku dhaa maraq loo karinayaan kule odayga soo socdo war maraqi la nooleynaya ee brokeriga suubka odayaashu waa ogtadii waxyaabaha loo sameynayaan kule gabar yaroo cirka ee dhulka inay ka socoto aan soo ogeynaan ku dhaa hadan cid reej ka dhalatay maxay u sameynayaan maraqay u hagaajinay wixii u dambeeyay odaygii yaa sida u balaan baleede
bay kusoo xigtaan kule waa qaybta waxay soo noqonaysaa part 3 ayaad kala socon doontaa. marka waxaan ku leeyahay shareka ha ka iloobin, subscribe-kana ha ka iloobin, waa free. ma lacag kaa gadan yahay? waa maya waay. ku shub subscribe-ka iyo like-ka yah sida ugu shubo. kheyrna allah idin siiyo, ilaahay ha idin wada barakeeyo dhammaanteen, dembigiina ilaahay ha dhaafo, ummadda dhimata ilaahay ha u naxariisto, annagana dhammaanteen ilaahay caafimaad hana siiyo. qof walba wuxuu jecel yahay oo jannada ugu horeysan allah siiyo. waxaan idinka tegey assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.